kulankan ka qabsoomay xarunta jaamacadda bariga Afrika qaybteeda magaalada Garowe waxa uu ahaa mid lagu soo bandhigayay qiimeynta nolosha iyo xaaladda guud ahaan dadka ku dhaqan deegaanada gobolka Gaardafuu oo ku yaala cirifka dambe ee geeska Afrika. socdaal qaatay in ka badan 22 saacadood ayaa qaar ka mid ah isimada dhaqanka, culimada, waxgaradka iyo salaadiinta Puntland waxay ku tageen deegaanada gobolkaasi iyadoo masaafada socdaalka la sheegay inay qaadatay in ka badan 772 kiiloomitir burburka wadooyinka wadeed. qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada dawladda iyo martidii kale ee goobta ka hadashay waxay sheegeen in dhaqaale hiil iyo hoobale ay la garab taagan yihiin sidii loo samata bixin lahaa nolosha dadka ku go'doonsan deegaanada gobolkaasi. طبعا wadadan mar hore ay idin loo kaco intii wax la gelin karay ilaahay u qadaray way gashay laakiin maanta dhibaatada ugu weyn ee taagan waxay tahay wadada wax qabadkeeda hadii la daaho waxa meesha ku baaba'aya waa caruur iyo haween waa waayeel aan tabar lahayn aan awoodin inay soo gaaraan dalka intiisa kale si ay caafimaad tayo u helaan. Gaardafuu waxaa degan dad isku kalsoon oo ilbaxa maantana gurmadkaas in la gaarsiiyo safka horaan ka qaadanaya insha Allah taala anigu waxaan ku ugu deeqay barnaamijkaas gacanta koobaad gacan labaadna waa jiri doontaa $1 hadii Ilaahay idmo. arintan waanu qorsheedaanu ku jiraa dhaqaale ururteedaanu ku jiraa shaqadeedaanu ku jiraa ka wasaarad ahaan anaga horta waa noo qorsheysan tahay runtii gobolka ugu horeeyay ee aanu tagno inuu noqon doono insha Allah gobolkaas. kiishka ama loorka briiska ah ayaa gobolka Gaardafuu waxa la sheegay inuu ka gaarayo $100 Mareykanka ah mana jiro wax adeegyo caafimaad oo dadkaasi ay helaan. qaar ka mid ah isimada waxgaradka, garaadada iyo cuqaasha Puntland oo iyana goobta ka hadlay waxay ugu baaqeen hay'adaha qaramada midoobay, ganacsatada iyo xukuumadda inay si wada jir ay gunta dhiisha isaga dhigaan sidii dadkaasi loo caawin lahaa. wax nin dhibay baa Soomaalidu tiraahdaa qabiilo ma dhibin. arrintaas reer Puntland ama reer Soomaaliyeed qaasar reer Puntland oo magac kasta uu meeshiisa ka mudan yahay haday dawlad tahay, haday ganacsato tahay, haday siyaasiyiin tahay, haday isimo tahay, haday dadweyne tahay, haday rag tahay, haday dumar tahay, qof waliba uu meesha u leeyahay ka qaadanaya. haday haaya tahay haddana aan rajaxayo inay dawladii iyo maamulkii dalka ka jiray ay dadka ku hoggaamiyaanin meesha iyo wixii la mid ah in wax loo qabto. hayeeshee dadka ku dhaqan gobolka Gaardafuu ee Puntland waxay si joogto ah ugu jiraan xaalad ka duwan tan ka jirta dalka intiisa kale go'doonka ay ku jiraan awgeed. Umar Soomane, Universal TV, Garowe.